وايه سؤالها وذا تشيف سيدان بانو جواب مدنيال iyo marwey eedeymaha su'aalahan xambaarsan yihiin waa kuwo hubsiinad dheeraad u baahan lama abuuri karo hay-ado iyo guddiyo iyadoo aan marka hore sharciyadooda la samayn la ansixin saxiixna aanu ku dhicin waxaan uga dan leeyahay processka ay soo maraan xukuumaddu iyadoo gudanaysa doorkeedii ahaa in ay soo gudbiso hindisa sharciyeedyada hay-adaha kala duwan u noqon lahaa aasaaska ay ku dhisan yihiin waxay horaantii ilaa bartamihii sanadkii 2013 baarlamaanka farta ka saartay hindisa sharciyeedyadan soo socda hindisa sharciyeedka golaha adeega garsoorka hindisa sharciyeedka dhismaha maxkamadda dastuurka hindisa sharciyeedka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka hindisa sharciyeedka xuduudaha gobolada iyo deegaanada hindisa sharciyeedka xuquuqda aadanaha hindisa sharciyeedka dhismaha gobolada iyo degmooyinka hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada hindisa sharciyeedkii dhismaha hay-adaha hay-adda maaraynta musiibooyinka hindisa sharciyeedkii maalgelinta ganacsiga iyo warshadaha hindisa sharciyeedkii hay-adda duulista hawada ee rayidka hindisa sharciyeedkii runta iyo dib u heshiisiinta hindisa sharciyeedka shaqaalaha arrimaha dibadda hindisa sharciyeedka xafiiska gardoonka hindisa sharciyeedka hay-adaha dib u soo celinta iyo dib u dejinta qaxootiga hindisa sharciyeedkii bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliyeed hindisa sharciyeedka kalluumaysiga iyo ee Soomaaliya hindisa sharciyeedka xeerka isgaarsiinta hindisa sharciyeedka shatiyada ganacsiga hindisa sharciyeedka sumadda ganacsiga iyo hindisa sharciyeedka guud ee xeerka maaliyadda waa 21 hindisa sharciyeed oo aanu gudbinay bilowgii ilaa bartamihii sanadkan oo aanu joogno dhammaantoodna aan gacanta ka saaray baarlamaanka baarlamaanku wuxuu ansixiyey dhowr ka mid ah sharciyada hase yeeshee saxiix kuma wada dhicin haddii taasi dhacday waxaa kale oo dastuur ahaan u qoray baarlamaanka in uu ku dhawaaqo in sharciyadaasi si toos ah ay u saxiixan yihiin automatic ratification 14 maalmood kadib si ay xukuumaddu howlaheeda si buuxda ugu gasho taasina ma dhicin ilaa hadda waxaan si buuxda halkan ugu cadeynay 21 kaas hindisa sharciyeed oo qaarkood la soo ceshay inaanu muddo 6 bilood gudaheed ilaa 7 bilood gacanta ka saaray baarlamaanka waxaa intaa dheer in xukuumaddu u gudbisay baarlamaanka muddo ka hor heshiisyo caalami ah ee ay ka mid yihiin heshiiskii tababarada ciidamada ee Soomaaliya iyo Turkiga بروتوكولكي معاونة دقالة صوماليا iyo Turki heshiiskii caalamiga ah ee Cotonou heshiiskii wasaaradda isgaarsiinta boostada iyo isgaarsiinta ee shirkadda Favori ee garoonka Aadan Cadde heshiiskii iskaashiga military ee Talyaaniga iyo Soomaaliya heshiiskii wasaaradda maaliyadda iyo Norway ee tashiilaadka maaliyadda gaarka hindisa sharciyeedyada iyo heshiisyada caalamiga ah ee xukuumaddu baarlamaanka u gudbisay muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay waa ilaa 30 marka la isku daro hindisa sharciyeed iyo heshiisyadii caalamiga ah markaad barbar dhigto xataa baarlamaanada dalalka degan waa tiro aad u badan in xukuumaddu baarlamaankeeda 30 hindisa sharciyeed iyo heshiisyo ay u gudbiso sanad gudihiisa arrintaas ayada ahayd dhabtii waxaa naga galay shaqo badan waana ku faraxsanahay xiriirka noocaasa oo ilaa dodomeeyada hindise iyo heshiisyo aanu u gudbinay baarlamaanka halkaa waxaa kaga jawaabay su-aashii dheereyd ee 2, 4 iyo 5 saddexdaas su-aaloodba hal mar aan kaga jawaabahay waxaan u gudbayaa su-aasha saddexaad ee mooshinka ee la xiriirtay si kooban maxaad waxqabadkii xukuumadda iyo balaankii xukuumadda
loogu soo gudbin waayey xukuumadda maxaa baarlamaanka loogu soo gudbin waayey waa dhab baarlamaanku xaq wuxuu u leeyahay inuu na weydiiyo strategic planka xukuumadda weliba wasaarad ahaan annagoo guddiyada kala duwan la xisaabtamayno si waxa aynu qabanay iyo waxa noo qorshaysnaa laysu barbar dhigo oo la ogaado meesha aan wax marayno su-aashaas waa garowsanay waana su-aal xaqa oo xiriirka baarlamaanka iyo xukuumadda saldhig u ah su-aashaas jawaabteeduna waa tan kadib markiina la weydiiyey strategic planki iyo waxqabadkii xukuumadda si laysugu eego waxaanu kaga jawaabay sidan taasi waa dhab waana la soo weydiiyey documentigaas hase yeeshee isla markiina la weydiiyey ayaanu golaha baarlamaanka u gudbinay qorshihii waxqabadkii 10 wasaaradood ee xukuumadda waxaana halkan ku hayaa cadayntii saxiixii iyo shaabadii uu agaasimaha xusuus dhowrka golaha shacbigu nagaga guddoomay soo gudbintii qoraalka qorshahaas ee wasaarad walba ee loogu talagalay guddiyada baarlamaanka halkan ayaan ku haynaa waakan warqadiina loo soo gudbiyey ee la xiriirtay ka jawaaba hawshan waakan warqadii aynu baarlamaanka u gudbinay istaamkii iyo aqbalaadii baarlamaanku inay dhammaan naga heleen strategic plankii iyo waxqabadkiiba 10 wasaaradood istaamkoodina halkaasuu saaran yahay guud ahaanna saasaa u gudbiyey warkan aan idinla qaybsanayaa waa warkii ay ahayd inaan baarlamaanku hortiisa kaga doodno oo ay ansusno sida wasaaradahaygu ula shaqeeyeen baarlamaanka waan ka gudbaynaa marka su-aashaas ayada mar haddaan documentina ka keenay garowsanayna wax dambe oo aan kaga fiidahaya ma jirto ayada waxaan marka halkaa igaga dhammaaday dhammaan su-aalihii 5 ahaa ee uu ka koobnaa mooshinkii xukuumadda laga keenay waxaan halkan rabaa marka haddii shaqo laysku diro annaga qaranka Soomaaliyeed baa shaqo noo diray hay-adii fulinta aynu nahay waxa aanu qabano waa inaysan sir noqon waxa caqabadaha oo naga hor yimaadaana waa inaysan ayaguna sidoo kale sir noqon si naloo kaga kaalmeeyo ummadda Soomaaliyeed nagu ogolaa sidoo kale wixii kala bixina oo aynu qabnana si dalka iyo dadkaba ay u anfacaana xaq baan ayadana u leenahay in la ka dhigto sida la aliyay markaan dhameeyay umuurihii mooshinka iyo wixii la xiriiray halkan waxaan ku hayaa caqabadihii muddadii aynu shaqaynayay aynu la kulannay iyo wixii aynu aragnay ayadana waa qabaa in la garowsan doono waxaanu leeyahay ma nihin dawlad ku meel gaar ah waxaanu nahay dawlad constitutional hase yeeshee institutioniskeena systemkeena iyo habdhaqankeenuba uma diyaarsana umana bisla dawlad dastuuri ah waxaa nagu fakaday hal mar nagu soo fakaday mas-uuliyaad aanaan u diyaar garoobin aanaana wada xamili karin hal waqti aysanna jirin cid si qorshaysan noola qaadaysa sida qalabaynta ciidanka 1 sano ka hor mas-uuliyaddaas waxaa nala wadaagi jiray amisom waxa weeyaan taa micnaheeda haddaan si kooban uga hadlo mas-uuliyaadkii dawlad mustaqil ah oo constitutional ah oo dhan baa hal mar lagu soo wareegay ama ha noqoto shaqo ama ha noqoto maaliyad ama mid kastoo ay noqoto cid noo qorshaysan iyo base dhaqaale iyo base resource dadeed iyo wax badan oo horay noogu diyaarsanaana runtii waa jirtaa wax badan oo wanaagsan oo aanu ka dhaxalnay xukuumadihii naga horreeyay laakiin mas-uuliyaadkii nagu soo fakaday way ka cuslaayeen awoodayada tusaale hal mid baan usoo qaatay gaar ahaan waxa weeye qalabaynta ciidankeena oo aan hadda ka hor soo sheegay saanadiisa loojistikadiisa mushaarkiisa in xukuumaddayadu ay ku guulaysatay ayna wada qaatay annagoo dareen gaara kale ciidamada qalabka siday gacanta Soomaaliya u geli lahaayeen cid kaleba hanala ka kaalmeeyo tan saddexaad waa mushkilooyin badan oo waqti dheer ka soo dhacaya Soomaaliya laakiin ayadana mas'uuliyadeeda aynu hal mar
inaanu wada master garayno ay mas-uuliyaddaas aynu qaadnay waxaan kulansanay ooy tahay hal mar inaan la wada tacaalo dawlad la-aan gaamurtay oo nabaday fawdo iyo kala dambayn la-aan kala qaybsanaan fakri argagixiso burcadbadeed iyo waxyaabo kale oo badan ayadoo muuqaalkeena imageka dawladnimo usan xoogganayn howlahan ayaga ahi waa duruufta rasmiga oo dalka ka taagan oo si toos ah markaanu noqonay dawladdii dalka mas-uuliyaddeeda toos anaan cidna ku halaynayn muddo dheer ayadoo ururtayna aanu hal mar dhaxallay dabcan waa u bareeray waana laka sugayaa mas-uuliyaddeeda laakiin culayskeeda waanu sheegaynaa number 4 waxaa ku dhex nool dawladnimadeenna dhaqan kooxaysi ku dhisan cid walba oo leh qorshe ajende gaar ah ee aan waafaqsanayn dastuurka waa u halis dawladnimadeenna curdanka ah xasilooni la-aanta siyaasadeed ee maanta kama dhalan institutioniskeena dhexdooda waxaa wada gacmo kale oo awood iyo ujeedo gaar ah leh waa khilaaf la dhex keenay aniga iyo madaxweynaha golaha baarlamaanka golaha xukuumadda tusaale 2 ilaa 3 toddobaad ka hor intaan buuqani abuurmin madaxweynaha waxaan ka wada hadlaynay 2016 oo ah waqtiga teeramkeenu ku egyahay iyo wixii ka dambeeya taa micnaheedu waxa weeye waqtigan dhib kama aanaan arkaynin sidee halkeebaan Soomaaliya u hogaaminaa 2016 yaanu ku mashquulsanay 2 ilaa 3 wiig ka hor golaha xukuumaddu waxay ahaayeen golo si wada jir ah consensus go-aankooda ku gaara inuu waanu si buuxda yaanu haddaan go-aan qaadanayno badanaada dhaqanka u gaarka ah xukuumaddayda wuxuu ahaa wax walba waxaanu ka aragnaa si wada jirahaanu 90% u wada aragnaa 2 ilaa 3 toddobaad ka hor golaha baarlamaanka mooshin kama jiro waa la socotaan waxaa muqadimiin ka ah xasilooni la-aanta siyaasadeed ee maanta wasiiro ka mid ah xukuumadda oo qaba in ayagu ay soo harayaan oo si sahlan loo bixin doono ra'iisul wasaaraha waxaan si cad ugu sheegay madaxweynaha oo dadaalkiisa la-aantii halkan la isla soo gaareen inaysan gar ahayn in koox dana gaar ah leh Soomaaliya looga haro fildhibaano waxaan idinka codsanayaa maanta in arrinta aan ka digayo idnaan fududaysan kuna dhiirataan xasilinta Soomaaliya oo codkiina xaqa ah ku baajisaan in loo qafaalaado koox gaar ah taasoo ah caqabad ballaaran ee noqotaal maanta si kooban sida aan wax u ogahay anoo aanan ugu wada tiigsanayn oo markasta dareenka iyo dulqaadka institutioniska aynu leenahay eegahaya waxaan ka fursan waayey inaan kooxdan gaarka ah oo danleyda ah doorka ay ku lahaayeen xasilooni la-aanta Soomaaliya inaan xuso waa ka maari waayey sababtoo ah waxaan dareemay oo qalbigayga iyo Soomaali jacaylkayga siinaya marka aan ka hadlayo maxaa idinku adkaaday doorka kooxaysiga haddaan ka hadlin Soomaaliya waa khiyaan wax aan taro waxaa u fiican inaan wax walba oo dawladnimada iyo constitutionka Soomaaliya parallel la ah dana la ah wata inaan cadeeyo taasi waa ogahay hawl yar ma aha laakiin mid ka weyn oo danta Soomaaliya ah yaa habboon in loogu huro looguna dhiirado in la sheego mushkiladaasi waa mushkilad taagan